madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sameeyay xilka qaadis iyo magacaabis xubno ka mid ah xukuumaddiisa. warqadani oo ka soo baxday xafiiska madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishinka Cable TV ayaa waxay u dhignayd sidan: madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne oo xilka qaadis magacaabis ku sameeyay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana ay u dhignayd wareegtada madaxweynuhu sidan: ujeedda xilka qaadis wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. sida la socotaan xilka qaranka ay dabcigiisu tahay inuu noqdo meerto, sidaa daraaddeed waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta aan ka qaado xilkii wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana kaga mahad celinayaa muddadii aad haysay xilka qaranka. ujeeddo magacaabid markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad, markaan arkay aqoonta, kartida iyo waayo-aragnimada, markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalan karta, markaan sameeyay la tashi, waxaan go'aamiyey 1 in Dr. Roble Muuse Cabdi Cilmi laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland. 2 in Dr. Maxamuud Yuusuf Cilmi laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland. warqadani ayaa ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Cabdulle Maxamed Cabbaas, Cable TV, Hargeysa.